السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي كسو دواده موضوعنا مانتا هديت كعصبتا كنالك فضلا سبسكرايب نوصار كنا صوبير كان من دوقا أصحابتا كحولا جنباليل كان فرصي برنامجيدو مركز سود عامبا aad ula socotid daawadaha ugu horeeyana noqotid saaxiibadada kalena sii gaadhsii hadaad sii gaadhsiin karto mawduucan sii sheer garin karto TikTok waa calaamad muujinaysa in dunidu ay diyaar u tahay soo dhaweynta dajaal cawar iyo sidoo kale calaamado xunxun oo ummadda muslimka lagu maran habaabinayo waayo aaladda TikTok oo in dhaweetaba Soomaalidu aad u isticmaasho waxay ku tusinaysaa in aaladan ay aaladaha kale kaga duwan tahay waxyaabo dhaqan xumo ah ayna la daristahay dhaqan xumo kowka ah haddaba TikTok oo dhawaan nagu cusub oo saameyn ku yeeshay da'yarta Soomaalida gaar ahaan dumarka markaasi muuqaal xun sidoo kalena video kale lagu lamaaneynayo la isdul dhigayo kadibna baraha bulshada lagu faafinayo gaar ahaan TikTok haddaba waxaas oo dhan waxaan ka hadlano wax ciyaar maaha ujeedooyinka TikTok loo aasaasay waa maxay TikTok yaa iska leh hadafka loo sameeyay waa maxay muxuu kaga duwan yahay social media hortiis jiray maxaa xigi doona TikTok kusoo dhawow mawduuceena oo dhammaystiran fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا sanadkii tagay waxaan daawaday taxane ciwaankiisu ah The Army of Satan ciidamada shaydaanka kaasoo ka baxay YouTube channel taxanaha ka koobnaa 18 xalqadood waan hubaa qofkii daawada 18 xalqadood linkiga hoosena waan u soo dhigi doonaaye waxa ka fahmi doona isbedelka ka socda dunidan iyo gaar ahaan TikTok hadii aan af Soomaaliyeeyo waa goob cawrada dumarka lagu goobeeyo ama lagu soo bandhigo TikTok waxaa leh urur dahsoon oo shayaadiinta caabuda oo aluminiumka waxaa ku abtirsa dadka ugu caansan dunida oo ay fanaaniin iyo siyaasiyiin ka mid yihiin waxa kaliya ay dadku ballan qaadayaan ayaa ah inuu marka ku soo biirayo waxay ugu soo bandhigayaan inuu noqonayo qofku qof caan ah iyo sidoo kale hantiile uu noqonayo kolka aad ku soo biirayso kaliya waxaad oranaysaa naftayda waxaan ka iibiyay shaydaan oo la micno tahay marka TikTok dadka aan ka xusi karo waxaa ka mid ah Rihanna, Jay-Z, Barack Obama, Bush, Justin Bieber iyo sidoo kale Michael Jackson, Bill Clinton, Bill Gates iyo kuwa kale badan dadka aan tahay qaar badan oo ka mid ah qiraal ayay sameeyeen waadna heli kartaa iyagoo leh naftayda ayaan shaydaan ka iibiyay su'aalaha jawaabahooda iyo TikTok halka ku abtirsado waa taa hadafka loo sameeyay waa maxay dadka ugu falaawariska badan social media waa dumarkana waa halka target u ah dajaal sida xadiiska ibn Umar rasuulka ka wariyay ku cad dadka ugu badan ee dajaal raaci doona waa dumarkana dadka falaawariska u ah ama ku taxan waa rag ogow dunidan in alle wax walba asbaab u yeelay waxaan aaminsanahay in TikTok uu qayb ka yahay asbaabaha dadka u dhaweynaya in badan oo shayaadiin ah muxuu kaga duwan yahay social media hortiis jiray TikTok waxa uu social media kale kaga duwan yahay saddex shay qiyaano ah qofka wanaagsana oo ka dhigi karo qof xun diiwaangelid uma baahnid marka aad TikTok joogto inaad ka mid noqoto uma baahnid wax codsiya inaad u dirsato si aad u daawato niikada iyo dhaqamada xunxun ee halkaasi ka socda waa TikTok markastood ku dhufato muuqaal TikTok ah waxa uu ku daaran yahay muuqaal ka xiga 99% waxay ku bilaabanayaan muusig iyo sirxud iyo wixii la mid ah taasoo ka dhigaysa qofkii wanaagsanaa qof xun oo markiiba la jaan qaadaya TikTok iyo aaladihiisaba haddii uu ku sii dhufsado waxa uu la noqonayaa qof la jibaysanba oo waxaad is arki doontaa adigoo marka dambena la neekinaya haddaad doonto ahow kii ugu taqwada badnaa shaydaanka waxaa kaliya aan kaga badbaadi karna waa inagoo ka leexana jidkiisa qaloocan maxaa xigi doona TikTok Allah subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa og waxa xigi doona iyo waxa soo socdaba balse qaybta hoose waa qiyaasta mawduuca iyo lafagurkaba TikTok waxa xigi doona social media yeelan doona astaamaha hoos ku xusan TikTok kuma jirto aaladaha ahlu fiqsiga lagu ciriirin karo nafsadiisana wasada ka ilaaliyo inuu ka fogaado TikTok iyo wixii la halmaalaba haddaba walaalkayga mawduucan daawanayo Facebook iyo WhatsApp danahaaga shakhsiyadeed way kugu filan yihiin inaad haddaad social media ka isticmaali karto shaqo kale balse TikTok-kaaga ma bannaana TikTok waa wax fiqsiga iyo xumaanta lagu gudbiyo waana kaaga digaya inaad moobilkaaga ku shubato aaladaha uu TikTok ka mid yahay shayaadiinta ayaaba isticmaashee waan kaaga mahad celinaya daawashada mawduucan waayo mawduucan diyaarintiisa waxay qaadatay muddo dheer daraasad ah micnaha TikTok ujeedooyinkiisa iyo maran habaabinta bulshada muslimka uu ku hayo
waxaa mawduucan gacan weyn ka geystay walaalkeen Axmed Salaad anigoo Cabduuliyana waa idinla socodsiinayay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibayaal ee fi amaanillah waynooyo barnaamijka xiga فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا